السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتا قيمة بدن كحرا جنالك آمن تكنولوجي اسكو سو نقد وناكسن إن شاء الله تعالى ما أنتو حين سل دراسيتنا هدو الله يدمو 10 كيسقالات أينكو برنيني ويب ديزاينينك خاصة HTML هي CSS إن شاء الله ما أنتي توبيك ينوحو نقدونا إلا لح توبيك width and height sida loo maamulo website-ka balaciisa iyo dhererkiisa ayaan isla arki doonaa hadduu alla idmo sidoo kale waxaan isla arki doonaa box model sida loo maamulo haddaynu ka bixin wax yar oo faahfaahin box model waa maxay waa kana box modelku wuxuu ka kooban yahay ugu horeyn content waa xogta ku qoran website-kayna sidoo kale content-iga waxaa ka sare mari doona padding waxa la dhaho padding asiga wuxuu u dhaxeeyaa border iyo content ayuu u dhaxeeyaa padding-kana waxaa ku sii xigi doona border-kana asigana wuxuu u dhaxeeyaa margin iyo padding ayuu u dhaxeeyaa halka margin uu yahay meesha ugu sareysay ee website-ka haddayna doonayno website-kayna waa kana border-kiisa guud website-kayna haddayna doonayno wax yar inaan kor ka soo sikoono waxaan isticmaali doonaa waxa la yiraahdo margin haddayna doonayno website-kayna inaan u yeelno border waxaan isticmaali doonaa border haddaynu doonayno website-ka ina border-ka iyo content-ka dhexdiisa wax yar ka soo sakino waxaan isticmaali doonaa padding ciwaankan xigan insha Allah ta'ala wuxuu noqon doonaa sida loo maamulo border sidee loo soo geliyaa website-ka ina border sidoo kale waxaynu arki doonaa border round corner sida website-ka ina border markaaynu u sameeyno sida geesaska aynu u soo jari lahayn sidoo kale waxaynu isla arki doonaa sida website-kayna dhaxda loo keeni doono tusaale ahaan fartan aynu hadda isticmaalahayno waxaynu ku dhex isticmaalahaynaa PPT ama PowerPoint hadda wuxuu noo yeelaa fartan wuxuu yeelaa leftiga haddaynu doono inaan geeyno centerka waxaynu dhihi doonaa control E hadda wuxuu noo taagan yahay centerka haddaynu doonayno website-kayna sidoo kale inaanu geeyno centerka waxaynu isticmaali doonaa waxa la yiraahdo waxaynu isticmaali doonaa wax la yiraahdo center page content with CSS sidoo kale waxaan isla arki doonaa opacity sidaan u qafiifin lahaynay sawirka aynu soo gelino opacity-giisa intaan hore ayaan isku soo daraasaynay fadlan hadduun ku kacsanayn Visual Studio Code-ka waxaad u soo kacsan kartaa dhahna laba qayb inaad tagtid inaad start button dhahdid kadib Visual Studio Code qortid kadib open soo tira Visual Studio Code-ka markaad soo kacsatid ugu horeyn sidaan ayaa kuu soo bixi doonto waxaad dooranaysaa file ayaa dooranaysaa file markaad dooratid folder annaga hore ayaan u soo abuuranay waxaan dhihi doonaa folderkii soo abuurnay ayaan soo kici doonaa kadib wuxuu noo yeelay desktop-ka waxaad raadinaysaa folder-kaada wuxuu ku qornaa anaga folder-kaana waa kana HTML iyo CSS kadib waxaynu ku dooran doonaa select folder website folder-kaani sidaan ayuu noogu soo kacay waa kana intaynu isku qori doonaa code-ka intaan hore ayaan u soo qaadanay waxaynu iska saari doonaa comment waxaynu dhihi doonaa calaamadaas aynu dhaxaysi doonaa equal laakiin ma doonayo inay noo soo muuqato waxaynu saari doonaa comment haddaynu saarno comment kama soo muuqan doono website-ka cashirkayna ayaynu sii wada doonaa xawaankayna koowaad wuxuu noqon doonaa sida loo maamulo width iyo height hore waxaynu soo gashanay sawir ayaa hore noogu jiray kana waxaynu isla maamuli doonaa sawirkan waxaynu isla maamuli doonaa hadda sawirkan sida u jeedid waxa uu saaran class ku saaran ee ku bikaray doonaa kadib waxaynu tagi doonaa CSS-ka cashirkii horeeto waa asigana comment ayaan iska saari doonaa kadib waxaynu dhihi doonaa dot maadaama uu yahay class kadibna control V ayaan dhihi doonaa hadda waxaynu maamuli doonaa width-ka sawirkan uu yeelo doono waxaynu dhihi doonaa 100 pixel
aynu isla aragno resultiga soo baxo. waa kana sawirkayna weli waa yar yahay. waxaynu badi doonaa widthka aynu siinay ayaanu badi doonaa. image 1 markaan doorano image aynu sii doonaa cafwan. kadib waxaan sii doonaa image markaan dhahno waxaynu badi doonaa cabirkiisa. resultiga ayaanu isla arki doonaa. soo jidid waa kana. haddana waxaynu isla maamuli doonaa hadduu alla idmo height-ka. horta waxaa muhiim ah inaad ogaatid waxa maamulhayno waa kana. waa sawirkan waxa u samaysan class lagu magacaabo image 1. CSS-ka ayaynu tegi doonaa. classka selector ayaynu soo samayn doonaa. image 1 waa selector-kayna image ka sii tag. kadib widthkiisa waa maamulnaa. hadda waxaynu isla maamuli doonaa height-ka. height-kiisa sidii waxaan dhihi doonaa 500 oo pixel. soo jidib waa kana sawirka. height-kiisa waxaa ka dhignaa height waxaa la dhahaa joogan ayaa la dhahaa ama dhererkiisa waa ka dheer yahay balaciisa. waxaanu ku maamulnaa height-ka ayaa badina 500 ka dhignay. halka widthka ama balaca aynu ka dhignay 300. haddaad doonaysid sawirkaada inuu noqdo mid square ah isla ekaysa cabirka. hadda waxaynu maamulnay width and height. box model sida loo maamulaa. box model waxaynu ku maamuli doonaa. waxaynu samayn doonaa paragraph comment ayaynu saari doonaa. horta waxaan dhihi doonaa box modelkaas comment ayaynu isku saaraynaa. commentigan waxa uu saaraa way kaa caawinaysaa waxaynu qori doono inaad fahantid. hadda waxaynu qaban doono shaqadaynu qaban doono waa box model. waxaanu ku tusayaa commentigan kama soo muuqan doono website-ka. kadib asigana sawir cusub ayaynu soo geli doonaa. waxaanu dhihi doonaa image-kan soo geli doono waa kala inta ayuu nagu jiraa. fadlan hadduu sawirku kugu jirin folderka ama file-ka uu hore waa inuu soo bilaa seel waa inuu ku jiro inuu soo jirin. anaga waa kana waxaan isticmaalahaynaa waa HTML iyo CSS. waa kana halka folder waxaa noogu jiro sawirkii iyo indexkii iyo sawir kaleeto iyo CSS-kii. waxaa laga rabaa inuu folderkaadu isku jiraan file-ka iyo sawirka. kadib ayaad ka arki doontaa editor-ka. waa kana hadda anaga sawirkii waa kana. sawir kalena waa kana. file-kiina waa kana. oo HTML-ka iyo CSS-kana waa kana. kadib waxaynu dhihi doonaa bg dot markaan dhahno asaa soo buudi doono. si aynu u maamulno waxaynu samayn doonaa div class ayaynu ku samayn doonaa. classka waxaynu dhihi doonaa image ama sawir Soomaali waxaan waxaad u bixin kartaa sawir ayaan dhihi doonaa. kadib divtan waxaa laga rabaa inay ka xirmato sawirka hoostiisa. waxaynu maamulayno classka aynu ku maamulayno waa inuu ku dhex jiraa divka. kadib classkan ayaynu dooran doonaa. CSS-ka ayaynu tegi doonaa. dot ayaan dhihinaa sawir. kadib hadda waxaynu maamuli doonaa margin. horta intaynu maamulin margin-kan iyo sawir iyo margin-ka intaan maamulin box model-kan aynu isla aragno resultiga. sawirkaynu wuxuu u egyahay background-ka horeeto. waynu ka bedeli doonaa. waxaynu soo geli doonaa sawir kaleeto ayaynu soo geli doonaa aamin ahay. CSS-ka ayaynu tegi doonaa. aamin ayaan dhihinaa. aamin. soo jididba sawirkayna waa kana. wuxuu leeyahay sawirkiisa kaleeto. waxaynu doonaynaa inaan kasoo sii karno geeska. anagu isticmaalayno margin iyo padding. sidoo kaleeto waxaynu doonaynaa inaan kasoo kirno sawirkan inaan kasoo kirno kor. waxaynu isticmaali doonaa idan margin iyo padding. waxaynu soo tegi doonaa CSS-ka. dot ayaan dhihi doonaa. kadib sawir dot markaan dhahno waxaan dhihi doonaa sawir. kadib hadda waxaynu isla maamuli doonaa
marginkiisa waxaan dhihi doonaa kasoo siki 30 pixel 30 pixel markaan dhaxno waxaa la rabaa resultiga inuu afarta gees kasoo siko 30 pixel dhankaas liftiga wuxuu ka siki doonaa 30 pixel top wuxuu ka siki doonaa 30 pixel bottom wuxuu ka siki doonaa 30 pixel soo jeedib waa kaasa afarta dhinac wuxuu ka sikaday 30 pixel wayna maamul karnaa oo kaliya waxaan dhihi karnaa korka bes ka soo siko si oo dhan waxaan raaci doonaa top hadda sida u jeediinba geeskan wuxuu leeyahay space kaas hadda uu bixi doonaa waxaynu ku maamulno top kaliya ka soo siko ayaan dhahnay markaynu dhahno top ka soo siko kor oo kaliya ayuu ka soo siko doonaa halkaas sida u jeediin kor bes oo ka soo sikaday cabirka waynu u badin karnaa waxaynu dhihi doonaa meeshan cabirkiisa waxaan dhihi doonaa 9 pixel sidoo kale to baadin ayaan wax ka arki doonaa asigana baadin ayaan dhihi doonaa baadin markaan dhahno sin waxaan sii doonaa 30 pixel cabirna la raac cabirka u baahan tahay waa sii kartaa soo jeedib baadinka wuxuu ku sii si afar dhinac baadinka waanu ku maamul karnaa sidii marginkii oo kale to hal dhinac ka soo siko dhihi karnaa waxaan dhihi doonaa hadda button hoos ka soo sikaayaan dhihi doonaa soo jeedib hoos wuxuu ku soo sikaday 30 pixel ayuu ku soo sikaday dhankan waxaa la dhahaa right top left iyo bottom dhanka u baahan tahay aad maamul doontaa adoo raaci doono margin markay tiraa top waa raaci kartaa left waa raaci kartaa sidoo kale to button iyo afarta dhinac waa raaci kartaa halka baadin oo la mid yahay marginka sidee loo soo geliyaa sawirka website-kayna border sidee loo soo geliyaa hadda website-kayna guud waxaanu soo geli doonaa border meel qaasna soo geli karnaa sawirkayna hadda soo geli karnaa border waxaynu tagi doonaa CSS-ka kadib waxaanu dhihi doonaa borderka wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo size cabir ayuu leeyahay width ugu horeyn waa inaan siinaa cabirka borderka inuu yeelo doonaa waxaan dhihi doonaa 10 pixel 10 pixel markaan siino waxaa laga rabaa style waxa la inuu qaato solid sidoo kale wuxuu qaadan doonaa colorka borderka inuu yeelo doono waxaan dhihi doonaa red waxaan dhahnay markii border soo gelin wuxuu yeelo doonaa width waxa la yiraahdaa cabirka waa inaan siidid cabirka markay siidid style nooc oo noqon doono waa inaan siidid solid waxay ka dhigan tahay mid afarta case aan xariiq lahayn sidoo kale waxa sii karnaa inta waxaan dhihi karnaa dash solid ayaan isku tirno waxaan dhihi karnaa dashed sidoo kale waxaan dhihi karnaa dotted kadib waxaan sii doonaa dhaanay colorka u baahan tahay sii doontaa soo jeedidba sawirkayna hadda waxa soo galay border guud oo ah dot hadaynu u baahno inaan ka bedelno dotkaas waxaynu ku laaban doonaa codekayni meeshan dot ayaan waxa ka dhigi doonaa solid waa mid aan lahayn dot soo jeedid baad wuxuu noqdo solid waxaan dhihi karnaa dash ayaan dhihi karnaa sidoo kale dash waa dot u dhow yahay xariiqmo waa dash waa kana resultiga hadda wuxuu borderkan wuxuu noo yahay dash haddaynu u baahno inaan maamulno borderkan inaan la keysino sawirkan waxaynu ku maamul doonaa width iyo height aad soo baran waxaynu dhahaynaa width 100 pixel soo jeedida 100 pixel hadda waa yaraayay waxaad leekaysi doontaa sawirkaada cabirku ahay sawirkaan anaga cabirku ahay waxaynu ka soo fiiri doonaa Visual Studio Code-ka CSS-ka sawirkaan waxaynu soo dhaanay width-kiisa 300 ee ka dhignay height-kiisa waxa ka dhignay 500
marka waxaynu ka dhigi doonaa widthkiisa waxaynu ka dhigi doonaa 300 oo pixel halka height aynu ka dhigi doono heightkiisana waxaynu ka dhigi doonaa ayaan soo dhahnay 500 oo pixel sawjida bulu waa yar yahay waxaa yar widthka ayaanu badi doonaa inta ayaynu ka dhigi doonaa 600 cabirka u baahan tahay ayaa gashanaysaa aniga hadda cabirkayna waa kaasa sida ujeedid cabirkayna wuxuu noqday intaan u noqday borderka waxaad ku maamuli doontaa width iyo heightkiisa balaciisa waxaad ku maamuli doontaa width and height sidee borderka aynu soo gelinay looga dhigaa mid koorna ah geesaska sidoo looga soo jaraa borderka hadda soo gelin hadda geesaskaas kama jarno saynu aragna resulti horta aynu ka dhigno solid kadib geesaska marka soo gelin waxaan dhignaa border radius marka dhan waxaynu sii doonaa cabir la soo jari doono cabirka soo jariisu waa 10 pixel kadib waan save garinaynaa soo jidba hadda geesaskaas koornaas waxa ka soo jarmay 10 pixel saynu aragno resultiga aynu siino cabir muuqan karo aan dhahno 30 pixel waa ka soo resultiga waxaynu hadda soo jarnay koornaha oo loo yaqaano border radius sidee website-keena loo geeyaa dhaxda ugu horeyn inta website-ka dhaxda geeynin waxa uu sameeyay wax lagu magacaabo containerka waxaynu ku sameey doonaa baadiga dhexdiisa div ayaan dhigi doonaa kadib divtan waxaynu sii doonaa class lagu magacaabo container class ayaan dhigi doonaa class markaan dhano waxaan dhigi doonaa container magaca alaala magacaad u baahan tahay waad u baxsan doontaa laakiin waxa muhiim ah waa inaad ka xirtid divkan meesha ugu hooseyso ee footerka baadiga korkiisa waa inuu ku xirmaa meeshan baadiga dhexdiisa maadaama website-keena doonayno dhammaan content ku jiro inaan dhaxda geeyno hadda waxaynu qaadan doonaa class name-kayna oo lagu magacaabo container ku bayaan doonaa CSS-ka aynu tagi doonaa kadib waxaan dhihi doonaa dot container markaynu dhahno waxaynu dhihi doonaa ugu horeyn waxa lagu magacaabo margin left waa kana margin left auto cabir leg is ayaan dhihi doonaa margin left hadalata waxaan dhihi doonaa margin right auto asiga iga dhig width cabirkiisa waxa iga dhigtaa ayaan dhihi doonaa width waxa iga dhigtaa 80% hadda resultiga aynu sugayno waa website-kaynan inuu isku yimaado dhaxdan contact aan ku qoran waa inay tagtaa dhaxda refresh ayaan dhihi doonaa soo jeedida website-kayna contact-iga ku qornay oo dhan waxaynu geynay center-ka ayaynu geynay waxaynu isticmaalnay wax lagu magacaabo container cabirkiisa waa ka dhigi kartaa 50% cabirka u baahan tahay waa ka dhigi kartaa dooqa adiga ayaa leh waxa kaliya dunida lagu kala duwan ayaa ah design-ka dooqa naqshada qofba naqshadu leeyahay soo jeedba hadda waxaynu geynay center-ka ayaynu geynay sidoo kale ciwaankayna xigo wuxuu noqon doonaa opacity hadda uma baahnino website-kana sidaan noo ahaaday kaliya adiga ayaa kugu tusay 80 ayaynu dhihi doonaa ama siisa noo ahaado opacity waa sida uu soo muuqan lahay sawirkaada mugdi inaa ka dhigtid waxaynu maamul doonaa hadda sawirkan soo muuqan doono sawirkan kalaaskiisa sawir yahay ayaa opacity-giisa iska yareyn doonaa sidoo kale waxa ku maamuli kartaa background waxaynu tagi doonaa background inoo sameysnaay waa kana background
background noo samaysana waa bg magacaas uu lahay waxaynu ka dhigi doonaa opacitygiisa opacity horta ugu horeyna opacity wuxuu ka bilowdaa waa inaan isla ogaanaa opacity wuxuu ka bilowdaa 0 ilaa 1 waxa ismaalta 0.1 0.2 0.3 ilaa 1 ayaa ugu weyn opacity waxaynu ka dhigi doonaa 0.5 markaynu dhahno waxaynu isla arki doonaa resultiga soo jeedib wuxuu noqday background-kayna khafiif ayuu noqday haddaynu sii badino dhahno 0.1 haddaan dhahno khafiif sayd ayuu sii noqon doonaa soo jeedid ba khafiif sayd ayuu noqday mar la adiga dooran doona cabirka aad u baahan tahay waxaana lagu maamuli doonaa wax la yiraahdo opacity hadda waxaynu dhihi doonaa 0.8 kaliya opacity kadib waan save gareyn doonaa cashirkayna maanta intaas ayuu ogyahay waa kuma sida daawashada muuqaalkan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh